بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. ولليال وحلقدي لبعض كمدة ترجمدي تاريخ نولدك الإمام النووي رحمه الله تعالى. حلقة إني هوري وحنو مقدمة أما هرلع وقسميني maxaanu ka helaynaa dadka culimada rabbaaniyiinta ah ee saalixiinta awliyaa uraxmaan inaannu isaga sheekayno maxaa faa'iido ah oon ka helaynaa ayaan muqadamadii hore aanu uga sheekaynay. haddana toos waxaanu u dhex gelaynaa taariikh nololeedkii iyo tarjamadii alimaamu nawowi raximahu llahu tacaala waxasharanaa macahu taxta liwaa'i almustafaa صلى الله وسلم وبارك عليه في أعلى فراديس الجنة. حان إلهي ويديسانينا إن إمام النووي رحمه الله تعالى إلهي رحمة ديسا يرديسا إلهي أكشبه وإلهي سبحانه وتعالى قبريسا وقرقه روضة من رياض الجنة. جهدي يددالك دينتا وكل بحيي juhdigii iyo dadaalkii uu diinta ku bixiyey alimaamu nawowi raximah llahu tacaala in ilaahay uu ka abaalmariyo qof caalim ah waxa ilaahay uu ka abaalmariyo nasiibka ugu weyn inuu ilaahay ku abaalmariyo ayaan ilaahay uga baryaynaa imaamu nawowi raximah llahu tacaala. waxaan kanoon ilaahay weydiisanaynaa inuu inaga iyo sheekha alimaamu nawowi raximah llahu tacaala ilaahay uu nagu soo kulmiyo taxta liwaa'i almustafaa sala allahu wasalama wabaaraka calayhi, calanka rasuulka salى اllahu عalيه wasalam iyo safka rasuulka salى اllahu عalيه wasalam ilaahay uu nagu soo kulmiyo annaga dhammaanteen iyo alimaamu nawowi raximahu اllahu tacaala. waxaan ilaahay weydiisanaynaa innaga iyo sheekha inuu ilaahay nagu kulmiyo fii xawdi اlmustafaa salى اllahu wasalama wabaaraka calayhi nashrabu minhu sharbatan haniyatan laa nadma'u bacdaha abada wanas'al اllaha tacaala an yajmacana jamiica مع الإمام النووي رحمه الله. waxaan ilaahay weydiisanaynaa innaga iyo sheekha dhammaan jannaة الفirdows in ilaahay dhammaanteen uu nagu kulmiyo. imaamu nawowi raximah اllahu tacaala waxaanu marka hore aanu ka hadlaynaa walaalayaal maxay ka yidhaaheen culimmadu. culimmadii isaga xilligiisii noolayd iyo dadkii ka dambeeyaba maxay ka yidhaaheen imaamu nawowi raximah اllahu tacaala. kow waxaanu ka soo qaadanaynaa xaafid ibnu kahiir raximah اllahu tacaala wuxuu sheekha uga tarjameeyey kitaabkiisa albidaaya waالnihaaya. waxaa kaloo uga tarjameeyey sheekha ibnu kahiir kitaabkiisa oo dabaqaat fuqahaaءi الshaaficiyiin kitaabka uu iska leeyahay, kitaabkaana wuu uga taariikheeyey. wuxuu yidhi ibnu kahiir raximah اllahu tacaala كان النووي على جانب كثير على جانب كبير من العلم والعمل والزهد والورع الذي لم يبلغنا عن أحد في زمانه ولا قبله بدهر طويل. wuxuu yidhi ibnu kahiir raximah اllahu tacaala imaamu nawowi wuxuu ahaa qeyb weyn ayaa waxa ilaahay uu ka siiyey cilmiga, ku camalfalka, zuhdiga iyo ka dheeraashaha iyo adduunyada xalaal miradka, arrimahaas oo qof aysan naga soo gaarin nasiibka ilaahay uu ka siiyey cilmiga iyo alla kacabsiga iyo zuhdiga iyo dadaalka diinta cid isaga ka horreysay imaamu nawowi raximahu llahu tacaala aanan ka maqlin ilaa zaman dheer oo fog. cid sheekha la mida oo cilmiga iyo alla kacabsiga iyo zuhdiga kula mida namama soo gaarin uu yidhi. waa zaman fog ilaa casrigii imaamu nawowi raximah اllahu tacaala. waxaa kaloo sidaas oo kale ardaygiisii ee la dhihi jiray calaa-udiin ibnu اlcataar kitaab wuxuu uga tarjameeyey ama uu uga taariikheeyey la yidhaaho tuxfatu طaalibiin. waa imaamu nawowi ardaygiisii. imaamu nawowi ardaygiisii kitaabkaa wuxuu ku yidhi qaala liya shaykhu moxamed ibnu اlxasan alixmasi. moxamed ibnu اlxasan alixmasi
sheekh la odhan jiraa wuxuu igu yidhi uu yidhi kaana الnawawiyu saalikan minhaaja الصaxaabة walaa aclamu axada fii casrina saalika. wuxuu yidhi ardaygii imaamu nawowi raximah اllahu tacaala sheekhan la yidhaha moxamed bn اlxasan ayaa wuxuu igu yidhi imaamu nawowi wuxuu ahaa jidka saxaabada ayuu waa dadkii nabiga arkay salى اllahu waslama wabaaraka calayh ee hadyigii iyo nuurkii nabiga salى اllahu waslama wabaaraka calayhi qaatay ayuu jidkooda ayuu ku socday. mana ogi uu yidhi sheekha moxamed bnu اlxasan cid casrigan ka mida xilliga imaamu nawowi uu noolaa oo jidkii saxaabada haya isaga un baan ka xasuustaa buu yidhi. marka waxaad garan kartaa qof lagu tilmaamayo waa ammaan weyn oo la leeyahay jidkii saxaabada qof haya xilligiisii imaamu nawowi raximahu اllahu tacaala ayaa laga hayay. waxaa kaloo sidaas oo kale ardaygii imaamu nawowi khaadumkiisiina ahaa oo la dhihi jiray calaa-uddiin ibnu اlcataar kitaabkiisa tuxfatu طaalibiin ee sheekhiisa uu uga taariikheeyey wuxuu ku yidhi calaa-uddiin ibnu اlcataar wara'aytu min shaykhii umuuran taxtamilu mujalladaat. wuxuu yidhi sheekhayga imaamu nawowi raximahu اllahu tacaala waxaan ku arkay arrimo haddii aan soo bandhigo oon qoro mujalladaad fara badan gaari lahaa ayaan ku arkuu yidhi oo ku saabsan cilmigiisa, xalaal miradkiisa, suhdigiisa iyo akhyaarnimadiisa iyo waxyaalaha ilaahay uu u hibeeyey oo ilaahay uu ugu deeqay subxaanahu wa tacaala. waxaa sidaa dhahaya waa qofkii ugu dhowaa dadka imaamu nawowi, waa ardaygiisii, waa khaadumkiisii, muddo fogna la joogay oo u khidmaynayo o u adeegay raximah اllahu tacaala. sidaas oo kale sheekhan la yidhaaho taqiyuddiin assubki ee lagu tilmaamo inuu darajat اlijtihaad uu gaaray ayaa wuxuu yimid madrasadii imaamu nawowi uu casharada ku bixiyi jiray oo duruusta uu ku akhriyi jiray ayuu yimid taqiyuddiin asubki. waa daartii la odhan jiray daaru اlxadiis alashrafiya fasaara yumariqu wajhahu calى اlbisaad aladi kaana yajlisu calayhi الnawowiy raximahu اllahu tacaala. gogashii uu imaamu nawowi cilmulxadiiska iyo fiqhiga ku akhriyi jiray ayuu sheekha taqiyuddiin asubki wejigiisa uu marmarsaday. markaasuu wuxuu dhihi jiray taqiyuddiin asubki casaa an amasa bixuri wajhi makaanan masahu qadam casaa an amasa bixuri wajhi makaanan masahu qadamu nawowi. waxaa dhici kartuu yidhi meel lugtii ama cagtii imaamu nawowi ay taabatay in wejigaygu uu taabto ayaa dhici kartuu yidhi. yacni derajada ilaahay uu gaarsiiyey imaamu nawowi waxaa la yidhaha inamaa yacrifu ahla alfadli dawuuh. qofka ahlu khayrka ee ahlu fadliga ah ee caalimka ah waxaa garan karaa maqaamka iyo mansilada uu joogo qof kaloo caalim ah ayaa garan kara oo fahmi kara. hadalkaasna waxaa qoray oo aanu ka soo xigannay kitaabkan taariikha ah ee la yidhaaho dabaqaat shaaficiya alkubraa ee uu iska leeyahay taqiyuddiin asubki wiilkiisii taajuddiin cabdulwahaab asubki uu iska lahaa. taasi waxayna tusinaya walaalayaal culimmadu siday u qadarin jireen oo xaqiisa iyo maqaamkiisa ay u yaqiineen alimaamu nawowi raximahu اllahu tacaala. waxaa sidaas oo kale kitaabkani uu qoray dabaqaatu shaaficiya alkubraa maalin maalmaha ka mida isagoo baqal wata taqiyuddiin asubki ayaa nin acraabiya herbaadiye ah uu sheekhu la kulmay. markaasay sheeko isdhaafsadeen taqiyuddiin asubki iyo ninkii herbaadiyaha ahaa.
sheekadiiyaa wuxuu ninkii soo dhex geliyey waxaan la kulmay oo aan la sheekaystay imaamu nawowi raximahu اllahu tacaala fanazla الshaykhu can baqlatihi taqiyudiin asubki baqashii ayuu ka degey waqabala daaka الrajul wasa'alahu الducaa markaasuu intuu ninkii dhunkooday yidhi imaamu nawowi aan la kulmay ayuu yidhi noo ducee wax badan ayaad ka dhaxashay ninkaa weliga ilaahay ah caalimkaa rabbaaniga ah maadaama aad la kulantay wax badan ayaad ka dhaxashaye noo ducee ayuu yidhi marka maqaamka imaamu nawowi raximahu اllahu tacaala dadkaasaa garanayay oo sidaa u tawqiirinayey oo sidaa u ijlaalinayay haddaba walaalayaal imaamu nawowi raximahu اllahu tacaala abtirsigiisa iyo magiciisu muxuu ahaa sheekha waxaa kunyadiisa la odhan jiray abu zakariya magiciisa tooskaana waxaa la odhan jiray yaxya aabbihiina waxaa la odhan jiray sharaf awowgiina muri awowgiisa kale xasan awowgiisa kale xusein ayaa la odhan jiray wuxuu ka soo jeeday qabiil ama jilib la odhan jiray bani xisaam marka waa yaxya bnu sharaf ibnu muri ibnu xasan ibnu xusein alxisaamiyu annawowi raximahu اllahu tacaala abtirsiga sheekha saasuu ahaa waa yaxya bnu sharaf ibnu muri ibnu xasan ibnu xusein alxisaami annawowi raximahu اllahu tacaala sheekhu naynaas ayuu lahaa ama kofaar qof walba sida uu u yaqaano naynaasta sheekha waxaa la odhan jiray muxyidiin nooleeyihii diinta shaksigii diinta nooleeyey ayaa lagu naynaasi jiray imaamu nawowi raximahu اllahu tacaala laakiin waxaa mar walbaba muhima inaanu isxasuusinno sheekhu wuu diidi jiray wuuna dhibsan jiray in muxyidiin loogu yeero ama lagu magacaabo nooleeyihii diinta waa dhibsan jiray imaamu nawowi raximahu اllahu tacaala waxaa sidaa sheegay inuu ereygan dhibsan jiray nooleeyihii diinta in la yidhaaho isagoo ula jeeda tawaaduc iyo isyasid iyo isdhuldhigid isagoo ila joogda waxaa sidaa yidhi sheekhan xaafid aلsakhaawi kitaabkiisa uu uga tarjameeyey alimaamu nawowi raximahu اllahu tacaala waxaa kaloo hadalkaas sidaas oo kale qoraya o aanu ka soo xigannay ardaygii imaamu nawowi kitaabkiisa la yidhaha tuxfatu طaalibiin waa kahan jiray tawaaduciisay ka mid tahay waa waxyaalaha uu ku maqaam gaaray oo darajaadka uu ku gaaray imaamu nawowi man tawaadaca lilaah rafacahu اllah qofkii ilaahay dartii isu liida oo anugu waxba ma ihi yidhaaho ammaanta iyo waxyaalaha la sheegayo oo dhan yacnii aan ku sirmin ilaaha kor u qaada subxaanahu wa tacaala alimaamu nawowi raximahu اllahu tacaala xaggee ku dhashay imaamu nawowi wuxuu ku dhashay magaaladan isagaba loo nisbeeyo annawowi nawa magaalada nawa ayuu ku dhashay xaggee ka tirsan tahay caalamkan inagu aanu ku noolnahay nawa waa xaggee nawa waxay ku taallaa dhulkan loo yaqaano suuriya waddankan suuriya ayay ku taallaa halkaas ayuu sheekhu ku dhashay wuxuu dhashay sheekhu raximahu اllahu tacaala taariikha hijriga markii uu ahaa 631 631 taariikha hijriyada ayuu sheekhu uu ku dhashay magaalada la yidhaaho nawa ee dhacda cariga suuriya sheekha raximahu اllahu tacaala najaabadiisa iyo wanaaggiisaba waxa uu ka muuqanayay yaryaraantiisii dadku waa laba qaybood qofna markuu soo weynaado unbaa nafaxaadka ilaahay ay ku dhacaan iyo hidaayada iyo towfiiqda rabbi qofna
isagoo yaraaba najaabada ay ka muuqanaysaa oo ilaahayba uu tawfiiqda siiyaa xataa isagoo saqiir ah oo yar. sheekha raximah ullahu tacaalaa ardaygiisii calaa-uddiin ibnu lcataar kitaabkiisa tuxfatu daalibiin wuxuu ku yidhi sheekha aabbihiis ayaa ii sheekeeyey buu yidhi. sheekha aabbihiis waa imaamu nawowi, aabbihiis ayaa wuxuu ii sheeguu yidhi markuu imaamu nawowi 7 sano uu gaaray isagoo 7 jir ah, habeenkuna uu yahay habeen ramadaan ah, 27 ramadaan ayuu soo baraarugay asagoo 7 sano jir hurdada ka kacay. markaasuu itoosiyo wuxuu yidhi yaa abati maa haada adaw alladii mala'a addaar, aabbe nuurkan gurigii buuxiyey, bal fiiri aabbow guriga dhan waxa buuxiyey nuur. wuxuu yidhi sheekha aabbihii gurigii ayaan fiirfiirinay waxba waan arki weynay nuur ah. facalimtu annahaa leylatu اlqadri. imaamu nawowi aabbihii wuxuu yidhi waxaan ogaaday wiilkayga in habeenkaa ilaahay uu waafajiyey leylatu اlqadri. allahu akbar. marka najaabadu waxayba ka muuqanaysay sheekha isagoo 7 sano jira ayaa waxaa la soo bilaaway towfiiqda ilaahay subxaanahu wa tacaala oo leylatu اlqadri uu arkay. hadalkaasna waxaa qoraya kitaabka la yidhaha tuxfatu daalibiin ee ardaygii iyo qofka xogta imaamu nawowi raximah اllahu tacaala hayay ahaa. waxaa ka mid a najaabada sheekha intuu yaraaba ka muuqanaysay. wuxuu yidhi sheekha ardaygiisu markuu sheekha ka tarjamaynayey wuxuu ii sheegay buu yidhi sheekhi la odhan jiray dhulkan suuriya ku noolaa la odhan jiray yaasiin yuusuf almaraakishi. asheekh yaasiin ibnu yuusuf almaraakishi waa sheekh 20 sano ka badan xajiyey oo 20 goor ka badan xajiyey ayuu ahaa alimaam asheykh yaasiin ibnu yuusuf almaraakishi. wuxuu yidhi sheekhaasi waxaan arkay imaamu nawowi isagoo 10 sano jira oo carruurtu ay leeyihiin madnala cayaartid oo cayaarta ay ku khasbayaan, isaguna markay cayaarta dhinaca cayaarta loo kaxeeyo uu ooyayo imaamu nawowi isagoo 10 jir ah oo uu leeyahay qur-aanka hayga mashquulinina, qur-aanka hayga mashquulinina. bal waxaad qiyaastaa wiil da'diisu 10 sano ay jirto yaa oo jaaniskii cayaartu ay u furan tahay oo weliba cayaartii loo sallaxay oo cayaartii loo soo diyaariyey oo ka dooranaya qur'aanka inuu akhristo oo uu ducaysto oo uu cibaadaysto ka doortay isagoo 10 jir ah. sheekh yaasiin ibnu yuusuf almaraakishi wuxuu yidhi markaas maalintaas waxaa qalbigayga ku dhacay wiilkan yar jacaylkiisa. waa imaamu nawowi oo yar. mucallinkiisii qur'aanka ayaan u tegey buu yidhi. waxaan idhi uu yidhi haada asabiyu yurjaa an yakuuna aclama ahli zamaanihi wa ashadahum. waxaan rajaynayaa mucallinow wiilkan yarkan hadda la joogo dadka ugu cilmiga badan, qofka ugu cilmiga badan inuu noqdo ayaan rajaynaa ee wiilkan si il gaara u yeelo. mucallimkii imaamu nawowi raximah اllahu tacaala wuxuu igu yidhi uu yidhi a anta munajib, ma xidiga yaqaan iyo faalshow iyo ciraafi miyaa tah see waxaa ku ogaatay? markaasuu wuxuu yidhi sheekh yaasiin ibnu yuusuf almaraakishi faqultu lahu laakina allaha antaqanii, lastu bimunajim laakina allaha antaqanii. xidiga yaqaan iyo faalshow iyo caraafi ma ihi, laakiin ilaaha iga dhawaajiyey calaamaatu najaaba ayaan ku arkayaa wiilkan yarka ah raximah اllahu tacaala. sidaasaa marka yaryaraantii sheekha waxaa uga soo bilowday najaabada sheekha raximah اllahu tacaala. sheekhu wuu ka soo tegey magaaladii uu ku dhashay nawa, wuxuu soo aaday caasimaddii waddanka ee dimashqa ayuu yimid. caasimadda dimashqa oo markaa waxaa ku yaalay masjidkii weynaaye jaamica ee la odhan jiray jaamic al-umawi oo markaa dad fuxuul ah
oo libaaxyo ah oo jibaal fi lcilmi wazuhdi waltaqwa walwarac ay wax ka daraasaynayeen. masjidka jaamica alumawi ayuu u soo safray, halkaas ayuu sheekhu barashada cilmiga markuu qur-aanka ku soo xafidiyey oo qur-aanka uu ku soo xifdiyey magaaladii uu ku dhashay ee nawa. sheekha raximah اllahu tacaala wuxuu degay madrasadii la odhan jiray almadrasa arawaaxiya oo nin muxsin ee ganacsato ah uu dadka soo xereystay uu markaa madrasadaa u dhisay, qarashkoodana uu bixin jiray iyo noloshooda. madrasadaas ayuu degay, masjidkana waxbuu ka akhrisanayey. wuxuu yidhi imaamu nawowi raximah اllahu tacaala baqiitu naxwa sanatayn lam adac janbii cala alard. markaan caasimaddii dimashqa markii aan imid oon cilmiga baranayey 2 sano waxaa isoo martay buu yidhi imaamu nawowi oo dhinacayga aanan dhulka dhigin. waxaana sidaa yidhi ardaygii imaamu nawowi kitaabkiisa tuxfatu طaalibiin, sakhaawi isaguna kitaabkiisa almanhalu اlcadbu الrawi ayuu isaguna uu ku sheegay qisadaas. 2 sano ayaa wuxuu yidhi dhinacayga aanan dhulka dhigin markii cilmiga aan raacanayey aan akhrisanayey. haddaba aanu ku cibro qaadanno walaalayaal in aan lagu gaaraynin maqaamkan imaamu nawowi raximah اllahu tacaala uu gaaray ee magacan ballaaran ee dunida u yaalla, maxabbada ballaaran ee dadka qalbigooda ilaahay uu jeclaysiiyey imaamu nawowi, iyo turaadka cilmiga iyo dhaxal cilmiyeedka uu ka tagtay oo maalin walba intaasoo malaayiin duco ah ay ku shubmayso, kuma uusan gaarin imaamu nawowi raximah اllahu tacaala si fudud kuma uusan gaarin. sharaf iyo najaaxana ogow inaadan fudayd aadan ku gaaraynin. hurdo badanow ku cibro qaado taariikhda imaamu nawowi raximah اllahu tacaala. qofka doonaya inuu wax barto ee caajiska iyo dheregta iyo hurdada iyo facebooka iyo maalayacniga ku mashquulayow, casharkan qaado oo ku cibro qaado noloshii uu soo maray imaamu nawowi raximah اllahu tacaala iyo sida uu wax ku gaaray. ma ahan walaalayaal macnaha aanu kala dan leenahay tarjamada iyo taariikhda imaamu nawowi inaanu isaga sheekayno in iska noqoto uun cashar joornaalada aanu ka akhrisanayno kabacdina aanu nidhaaho sheekhii waa laga taariikhiyo wallahi nin wanaagsan uu ahaa, qof walibana uusan waxba ka faa'iidaysan. ma aha ulajeeddada aanu taariikhda u akhrinayno. waxa weeye sheekha inaannu isku dayno inaannu ku dayanno oo bal siyarkiisa iyo axwaashiisa aanu ku ta'ahurno weeye waxa aanu mar walbaba aanu uga sheekaysanayno alimaam annawowi raximah اllahu tacaala. raximah اllahu tacaala markuu jaamicii alumawi iyo madrasa rawaaxiya uu u dhexeeyey wuxuu halkii maalinba ku tixnaa 12 cashar. maanta waxaa laga yaabaa ardaydu inay ka cabaadaan qofkii 3 cashar ama 4 cashar ku tixan in lala yaabo oo la yidhaha maskax badanida balse waxaa ku keenaysaa sheekha dee hurdu meel uu ka quustay, dheregna wuu ka quusto wuu iska daayey, hurdana wuu iska daayey, naftana wuu la dagaalamay. ilaahay subxaanahu wa tacaala hadafkiisa wuxuu ka dhigtay ilaahay inuu gaaro ridihiisa iyo diintan inuu u khaadumeeyo oo u adeego bis. 12 cashar uu ku tixnaa oo weliba casharo mug iyo miisaan leh, kutub waaweyn ah ayuu akhrisanayey. waxaa ka mid ahaa casharada uu ku tixnaa kitaabkii tanbiih oo abulisxaaq shiraasi uu iska lahayo fiqhu limaam shaafici. kitaabka wuuba xifdiyey sheekhu can dahri اlqalbi ayuu ka xifdiyey 4 bilood iyo nis ayuu ku xifdiyey kitaabka tanbiiha ah. waxaa kalou xifdiyey kitaabkii almuhadab, kitaabku almuhadab oo abulisxaaq shiraasi uu iska lahaa ayuu wuxuu rubca cibaadaadka ayuu ka xifdiyey sheekhu raximah اllahu tacaala. waxaa kaloo ka mid ahaa sheekha kutubta waaweyn oo markaa uu meesha uu ku akhrisanayey kitaab la yidhaha aljamcu bayna saxiixayn ee lagu aruuriyey axaadiistii bukhaari iyo muslim uu ku tixnaa. waxaa kaloo ka mid ah cashar saxiixu muslim oo isagana uu ku tixnaa. waxaa kaloo ka mid ah cashar uu ku tixnaa allumac libni اljinni fi naxwi, kitaab allumac la yidhaaho naxwaha ibnu jinni uu iska lahaa ayaa ka mid ah.
waxaa kaloo ka mid ahaa kitaab la yidhaha islaaxu lmandiq isagana wuu akhrisan jiray waxaa kaloo ka mid ahaa cashar isagana sarfiga wuu akhrisan jiray intaasoo dhan waa fii khilaali yowmi waaxid waa halka maalin casharada uu akhrisan jiray waxaa kaloo ka mid ahaa cashar usuululfiqhi ah oo isagana uu ku tixnaa waxaa ka mid ah cashar uu ka qaadan jiray asmaa'u rijaal rijaalulxadiis taariikhdoodii iyo wafayaadkoodii iyo qisaskoodii iyo magacyadoodii ayaa ka mid ahaa waxaa kaloo ka mid aha darsi fii usuuli addiin cashar kaloo caqiidahna wuu ku tixnaa sheekha intaasoo casharo ah ilaa 12 cashar ee kutub mug iyo muuqaal iyo miisaan islaamka ku leh ayuu ku tixnaa waxaad marka ku fikirtaa dhegaystow 12 cashar oo qiyaas ahaan casharkiiba lagu akhrinayo markay ugu yaraato 1 saac lagu jirayo cashar walbaana uu u baahan yahay ugu yaraan 1 saac in lagu ceshado waa 24 saac 24 saac oo maalintii habeenkiiba dee wuxuu ku dhammaaday uu ku baaba'ay cashar maruu u sii socdo iyo maruu isagu ku ceshanayo goormuu hurdayey goormuu wax cunayey goormuu qubaysanayey goormuu dana adduunye ka shaqaysanayey waxaasoo dhan meel ayuu iska dhigay adigaaba ay kula weyn tahay adduunyo meeluu iska dhigay alimaam annawowi raximahu اllahu tacaala dhinaciisa dhulka ma dhigaynin hamigiisii jacala julla hamihi rida allah subxaanahu wa tacaala wa khidmata hada اddiin hamigiisii dhammaan wuxuu ka dhigay ilaahay ridihiisii iyo diintan siduu ugu adeegi lahaa wuxuuna ku gaaray arrinkaa walaalayaal fii khilaal 46 caaman inuu mala'a haadihi اdunyaa cilman wa waracan wa zuhdan wa taariikhan shaamikha 46 sanuu dunida ku noolaa sheekhu 46daas sano gudaheedu caalamkan aanu arkayno wuxuu ka buuxiyey cilmi iyo zuhdi iyo warac wuxuuna ka tegey taariikh mushriqa taariikhdan aan damaynin oo dhammaanaynin ayuu sheekhu uu dunida uu uga tegey halkaasna walaalayaal waxaa inoogu dhammaaday xalqadeennii labaad ee aannu uga taariikhaynaynay alimaam annawowi raximahu اllahu tacaala waxaan mar kale aannu isugu soo laaban doonnaa xalqadii saddexaad oo aannu uga taariikhaynayno alimaam النووي رحمه الله تعالى وحشرنا معه في أعلى فراديس الجنة هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته